waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. saaxiibayaal soo dhawaada channelka daawanaysa waa Nuno Academy. maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sida website-kaaga aad ugu xiran lahayd Google AdSense. laakiin waxaa laga yaabaa qaarkiin inay isweydiinayaan waa maxay Google AdSense. Google AdSense waa meesha aad kala socon lahayd dhaqdhaqaaq kasta oo ka socda website-kaaga. haddii ay noqon lahayd dhanka dhaqaalaha, haddii ay noqon lahayd tirakoobka ama inta soo gasho ama inta imaado website-kaaga, ama inta click per cost uu helo, ama inta booqasho ugu timaado website-kaaga oo maalinle ah, waa meesha aad ka ogaan lahayd. laakiin waxa ugu muhiimsan aan u baranayno ama aan ugu xiriirsanayno website-keena Google AdSense waa in website-keena uu lacag inoo sameeyo. haddaba dad badan waxaa laga yaabaa inay ku dhiban yihiin sida website-ka Google AdSense loogu xirto. haddii aad qofkaas tahay, fadlan channelka subscribe noo saar, muuqaalka noo like garay, noona share garay. haddii aad meeshaan ku cusub tahay oo markaa ay koowaad tahay, channelka waxaan kusoo gudbinaa waxyaabo kala duwan. waxaana ka mid ah barashada website-ka, sidoo kale waxaa ka mid ah sida online-ka lacag laga sameeyo, sidoo kale waxaa ka mid ah security tips ama waxyaabaha internet-ka ciladaha ku dhaca. marka fadlan si aad u noqoto qofka koowaad ee cashirkeena u soo dhaco, subscribe noo saar, gambareelkana furo. aad iyo aad u mahadsantahay. bal xaqiiji inaad subscribe saartay. waa saartay ayaan umaleynaya. aad iyo aad u mahadsantahay. marka xaggan aad joogtid, marka xaggan waa screenka laptopka, xagga markaad joogto waxaad tagaysaa Google markaad tagtid, marka aad rabto inaad Google AdSense aad ku darsato ama Google AdSense aad website-kaaga ku xirto, waxaad u baahan tahay laba step inaad martid. stepka koowaad waa inaad iska diiwaangelisid Google AdSense. stepka labaadna waa inaad ku xiritid. marka waxaan ka bilaabaynaa stepka koowaad oo ah sida la isaga diiwaangeliyo Google AdSense. xagga markaa Google-ka joogtid waxaad ku qoraysaa AdSense. saa u jeed hore ka soo boodayba waa adsense.google.com. adsense.google.com. enter ayaad leedahay. enter markaa dhahday, marka saa u jeedaan screenka noocan ayaa ku soo baxay ama interface-ka noocan ayaa ku soo baxay. xagga markaad joogtid, qofka uu u diiwaangelsan yahay ama hore isaga diiwaangeliyay wuxuu ku dhufanayaa sign in ayuu ku dhufanayaa qofka hore isaga diiwaangeliyay. laakiin qofka ku cusub wuxuu ku dhufanayaa get started, macnaha hadda bilow. adiga waxaa laga yaabaa marka inaad ku cusub tahay, maxaad ku dhufanaysaa marka get started. markaa ku dhufato, aniga saa u jeedin gmail-kayga ayuu ii soo qabanayaa oo waxa waaye horey ayuu iigu samaysan yahay. haddaan use another account ku dhufto, waa gmail cusub ku fura ayuu leeyahay. marka adiga markaad xaggan joogto, gmail-kaaga ayaad gelinaysaa, kadibna password ayaad samaysanaysaa. kadib username iyo password markaad samaysato, totally ama gebi ahaanba waxaad imaan doontaa xaggan laga soo gelayo ama sign inta haddaan ku dhufto, aniga horey ayuu ka gelayaa because waa diiwaangelisanahay. adiga markaa isoo diiwaangelisana xaggan ayuu ku keeni doonaa insha allahu tacaala. xaggan markuu ku keeno oo waxaa waaye waa meeshii AdSense-gaaga laga maamul lahaa. marka sidaa u jeedid, ani hadda wuu igu xiriirsan yahay oo website-kayga tahsolution.com wuu ku xiriirsan yahay. adiga laakiin markaadan ku xiriirsanayn, xaggan ay ku qoran tahay sites, meeshaan ay site ku qoran tahay ayaad imaanaysaa, ama homekan xitaa waad ka heli doontaa hadhow hadduu ilaahay ma yidhin. xagga markaad imaato kadib site-kaaga ayaad aad garayn doontaa, ama site-kaaga ama website-kaaga ayaad aad ku siin doontaa. website-kaaga xaggan ay ku qoran tahay add site ayaad ku dhufan doontaa. markaad ku dhufato kadib URL-ka ama address-ka website-kaaga ayaad gelinaysaa, kadib save and continue ayaad ku dhufan doontaa. xagga markaa ku dhufatid wuxuu ku keenayaa shaashadaanita ayuu ku keenayaa meeshan home ah. xagga markuu ku keeno meelahan ayuu code kugu siinaya. code-ka uu ku siiyo ayaad qaadaysaa. waa soo koobeynaysaa code-ka. markaad soo koobeyso kadib intaad qaado ayaa waxaad imaanaysaa maxay website-kaaga. tusaale website-kayga aan galo, website-kaaga ayaad code-ka aad soo koobiyeysay meel ka mid ah ku paste garaynaysaa. waa header-ka ayaad ku paste garayn doontaa. username-kayga geli, click xaggan website-kaaga ayaan galay. marka waxaan ku tusi doonaa meesha aad ku paste garayn doonto code-ka lagu siiyey. xaggan saa u jeedid waa backend-iga ama meesha laga maamulayay website-kayga. adiga markaad code-kaaga xaggaad kasoo koobiyeysto oo website-ka kasoo AdSense-ka kasoo koobiyey garaysto, waxaad imaan doontaa hoos u soo soco. waxaad imaan doontaa xaggan ay ku qoran tahay appearance. meeshaan ay ku qoran tahay appearance ayaad imaan doontaa. kadibna waxaad imaan doontaa meeshan ugu hooseysa ay ku qoran tahay theme file editor. markaad ku dhufato ood imaado kadib calaamadan ayaad soo jiidi doontaa. waxaad ku dhufan doontaa xaggan ay ku qoran tahay header.php. xaggaas ayaad click ku siin doontaa.
xagga markaad click ku siiso aniga hadda uu ii paste gareysan yahay oo ay igu jiraa laakiin adiga markaad ku cusub tahay xaggan between meesha calaamadan head kan furan closing head iyo open head baa tan waa open head tan waa closing head meeshan oo hadda aniga koodkii hore ayaan u paste gareeyay waa kan script http ay ku qoran tahay googlead.com ay ku qoran tahay xaggaas meeshan headtan hoosteeda ayaad ku paste gareyn doontaa kadib update ayaad ku dhufan doontaa kadib wuxuu ku soo qori doonaa your code is updated successfully xagga markaad ku qorato waxay ka dhigan tahay website-kaagi wuu xiriirsan yahay bas marka meeshan ayaad imaan doontaa waxaad dhihi doontaa marka review code-kaaga tusaale hadda markaan aan u baahan inaan ku xiro waa kan add site markaan dhaa kadib eed xaggaa geliso kadib waxaad ku dhufan doontaa review meel ay ku qoran tahay ayuu ku tusi doonaa reviewda ayaad ku dhufan doontaa kadib waqti ayay ku siinayaan oo kadib ayagaa jeegaraynaya inaad ku xiratay in kale kadib waxaa kuusoo muuqan doona shaashadeedan camal oo sidaan u eg shaashada noocan u ega oo your profile is complete AdSense setting confirmed ayaa lagu soo qori doonaa inta hadaa lagu soo qoran waxay ka dhigan tahay website-kaaga wuu xiriirsan yahay marka intaa tago waxaa jira wax muhiim ah waana stepka labaad si aad ula socoto dhaqdhaqaaqa Google AdSense-gaaga si aad ula socoto dhaqdhaqaaqiisa markastana aad u aragto waxaad u baahan tahay wax lagu magacaabo sitekit waa balaagin lagu soo daro oo ka caawinaya website-kaagi iyo waxa waaye AdSense-gaaga inay si fudud u wada xiriiraan sitekit la'aantiis way adag tahay in waxa waaye website-kaaga AdSense aad aragto marka saa ugu soo darsatid sitekit waxaad imaan doontaa insha Allah ta'ala waxaad imaan doontaa balaagin meesha ku qoran tahay ayaad imaan doontaa oo haddaan balaagin xaggan ka raadiyo saa ujeedaan xaggan kuma jirto ee waatan balaagin meeshan ay ku qoran tahay balaagintan ayaad imaan doontaa balaagin markaad imaato kadib waxaad ku dhufan doontaa add new balaagin cusub kusoo darso balaagin cusub markaad kusoo darsanayso hoos ayaad u soconaysaa xaggan hoos ayaad u soconaysaa kadib meeshan ayaad ku qoraysaa site markaad dhahdo space ayaad siinaysaa kadib waxaad qoraysaa sitekit markaad ku qortid waa kana kan koowaad ee Google-ka calaamadiisa ay ka muuqato xaggan wuxuu ku soo qaban doonaa install markaad dhahdo kadib isla xaggan ayaa waxaad ku dhufan doontaa activate saa u jeedin anigu igu jira oo update-na uu soo qabanaa laakiin adiga wuxuu ku soo qaban doonaa install kadibna activate garee inta markaa ku sameeyst kadib kor ayaad u baxaysaa waxaad imaanaysaa dashboard meesha ku qoran tahay sitekit meesha ku qoran tahay ayaad imaanaysaa marka sitekit meesha ay ku qoran tahay ayaad imaanaysaa marka waxaad xaggan ayaa wuxuu ku soo qaban doonaa gmail-kaaga ayuu ku soo qaban doonaa kadib waad ku dhufan doontaa connect ayaad dhihi doontaa kadib hadana connect allow 3 mar ayaad allow leedahay kadib uu kugu xiriirsamaya saan ayuu kugu soo bixi doonaa haduu ilaahay ma yidin marka xaggan waxaad kala socon doontaa user-kaada inta qof ay yihiin saa u jeedaan xaggan waa user-kii inta ku soo booqatay inta qof aad heshay iyo waxyaabihii dhan oo muhiimka inta posteed soo gelisay inta postiga qof ay daawatay unique page views intaad ka heshay page kasta inta view aad heshay ayaad ku dhufan doontaa xagga markaad u soo socoto hoos markaa u soo degtid saa u jeedaan meeshan waxaa ku qoran enable auto ads for your site xagga markaan ku dhufto kadib saa u jeedaan wuxuu ii keenay Google AdSense-gayga ama meeshii Google AdSense laga fiirnay xaggan waxaad dhihi doontaa auto AdSense meeshan ku qoran tahay ayaad hadda anuu ii shidan yahay adigan sidoo kale waa daaraysaa tan waa daaraysaa kadib apply site ayaad leedahay oo site-kayga xayisiimaha u ogolaa waay marka isaga haduu ilaahay ma yidin ku ogolaan doona marka Google AdSense waa muhiim aan kugu celiyo aan ku samargareeyo waxaad mari doontaa 2 stepka koowaad waa inaad iska diiwaangelistaa Google AdSense markaa iska diiwaangelisa kadib uu shaashada ku keeno waxaad ku dhufan doontaa add site markaa ku dhufato waxaad gelin doontaa URL-ka ama address-ka website-kaaga intaas markaa gelisa kadib code ayuu ku siin doonaa code-ka ayaad soo gudbiyaysanaysaa waxaad geyn doontaa meeshii website-kaaga laga maamulayay ama dashboard-kaaga oo ah WordPress-ki kadib meeshii aan ku tusay ayaad ku paste gareyn doontaa kadib review ayaad leedahay sidaa ayuu ku connect gareystay marka labaad waxaad u baahan tahay sitekit waa balaagin waa la soo degaysaa kadib install ayaad leedahay kadibna activate ayaad leedahay kadibna sidaas ayuu kugu xiriirsamayaa 3 mar ayaad connect allow leedahay oo gmail-kaaga ku xiraysaa kadib dashboard-kan ayuu ku siin doonaa haduu ilaahay idmin marka waan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iiday
haddii aad su-aal qabtid fadlan commentiga noogu reeb sidoo kale haddii waxa aadan fahmin ay jiraan fadlan commentiga noogu reeb oon kusoo jawaabi doonaa sidoo kale haddaad channelka ku cusub tahay fadlan channelka subscribe noo saar noo share garay muuqaalka naag noo saar aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu